الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن سوق أن هلكو يري باب استقبال القبلة شروط صلاة وليكو جرنا إن وقت وسوق له إن شركاغية دركاغية قوبتها كنت كان يسابع طاهر نقضان إن عوراد على استرته شرطك أفراد قدام بيه والشيغي صلاة إنتان لقلين استقبال القبلة قبلة حق يدين لو جيت سلوي مسألة قبلة وجيت سجدوا وشرط كم إذا شروط وحي صلاة كوا الصحراء ما بحارضات بالغس والريبة مرنا وعموما صلاتها السنة يقفك سعودية سفرية جيت سعران مرنا وصلاة فرض أهو لأودي وايي ama qofku uu kari waayay qiblada inuu u jeesaday inta wixii aan ahayn salaad ma asaxdaan qiblada loola jeedan wahuwa istiqbaalka qiblada loo jeedsaday shartun wuxuu shardi u yahay li sihhati salaati salaad inay asaxdo isaga in la yimaado ay ku xiran tahay hadii qibladii hadda salaadii dhabarka u duudo ama labada dhinac midig iyo bidixaad u duudo dhinac kala galbeed iyo bari meeshan aan joogno kala u jeedsato salaadu ka asixi mayso illa fi shiddati al-khawf absi adag inay jirto oo xaalad dagaal lagu jira maahane misalada marka hore qiblada in loo jeedsado inay tahay ilaahay baa yiriba fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram xagga masjidka haramka jihada wajigaaga u jeedi saasa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wa sallam dadkana waa la hadlay oo waxa yiri waxaytu ma kuntum meel kasto aad joogtaan dunidaba fawallu wujuhakum shatra xagga kacbada u soo jeedsada dunida meel kasto ka joogto ama biyaha ku jir ama bariga joog ama hawada buub mar kasto oo salaad tukanayso waa inaad dhinaca qiblada u jeedsataa masalada uu si faahfaahin doonaa sidee baa loogu jeedsanayaa ama lagu garanayaa qibladii inaan u jeedo waxyaabo kamid uu tilmaami doonaa nabigana calayhi salaatu wasalaam ninkii salaada ku xumaatay markuu barayay wuxuu yidhi weysada markaad soo hagaajisay kadib qiblada u jeedso kadibna allahu akbar dheh haddaba intaadan allahu akbar salaada gelin waa inaad qiblada u jeedsataa إلا في شدة الخوف عبسي أدك إني جرت معاني تنوى حالة الدقال كمركا لو جرى أصل واحد إلهي قرآن كوكول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذن كول فرجالا لغينيا أو ركبانا قادي تاران صلاة تكذا تنين دقال لما إياه oo marna jeeraynaya marna wax cayrsanaya marna la cayrsanayo oo isaga la eriyanayo ba waxa la yiri salaadii sida ku tuko waxa xaalatul khawf markay cabsi timaada marka istaagii baan kari karin ee qiblo u jeesatana ba kari kartid oo dagaal baad ku jirtaa carar baad ku jirtaa wax iska difaac baad ku jirtaa midig iyo bidix iyo hor iyo gadaal binaad u noqotaad u baahan tahay say ku qabateed kari karta uu tuko ولذلك حديث ابن عمر باوحوها رضي الله عنه وارضاهما البخاري غير كود وريين مستقبل القبلة وغير مستقبلها إذنكو قبلة وجهده إذنكو وجهدين صلاة كذا صلاة القبلة هو شرطي كان حدي لا أودي وايو ودعا ولا وجوه مع العجز مرة ما صومرنايو قفك وحونا أودي واجبكم معها taasi waa cabsida adag midna waa nas inna waa qiyaas nasku wuxuu ku soo arooray markii dagaal lagu jiro laadu salaatul khawf ay marka hore ka soo hadleen kadib aakhirkii la yiri fa in khiftum farijalan aw rukbanan cilada sababta loogu ogolaaday dhan kastaba in loo jeedsadana xaaladda nabadgeliye ee aad ku jirtee dagaali kuma saamaxayso inaad iska istaagto qibla isaga jeedo way raga dagaalayseeni midigna waa ka jiri karaa biixna waa ka jiri karaa gadaalna waa kaaga iman karaa
qiblada u jeedsoo tuko macnaheedu qoorta dhiibo wey oo naftaadii hallig wey iyadoo ajashi ilaahay uun hayo laakiin asbaabtii baynan ahayn haddaba halkaa cillada haddaynu eegno sababta saa loo yidhi inay cabsi badan iyo khatar badan oo qofka haysata ay jirta wey cilladaa darteed bay fuqahadu masaa'il dhowr ah bay raaciyeen oo cabsi adag jirto waxay dhahaan salaada adoo ku jira baa dab kacay dee guriga hadduu dab ka kacay inaad ka cararto soo qasab maaha salaaddii miyaad ka bixi waxay dhaheen maya salaatulkhawf baa tukan orodkaagaasaad kusii tukan dhinaca u jeeda mustaqbili alqiblati wagayri mustaqbilihaa wey adoo salaada ku jira baa ay dad cunay kugu soo fakaday de haddaad taagsii taagnaato naftu waa kugu simi weyday maxaad samayn orod baad isdhigi farijaalan aw rukbaanan baabkeediina waad geli sidoo kale hadday biyo duufaana soo fakadaan xaaladaha qofku khatar uu galo isagoo salaad ku jira ee uu carar huri waayo oo dhan fii shiddati alkhawfi bay geliyaan walidaalika kuma dhihin dagaal in lagu jira fi lxarbi kuma dhihin ereyga fii shiddati alkhawfi cabsi adag inay jirto wuxuu cabirayaa cillada inuu tilmaamo ay suwar iyo masaa'il badan oo cillada ay jamcinaysaay ay soo wada galaan wa nafli safari masalada 20 wey tii hore faradkii waxaa laga soo reebay shiddatu alkhawfi cabsi adag markay jirto cumuumkana culimmada qaar baa geliyay cumuumi qowlihi tacaala فأينما تولوا فثم وجه الله على معنى فثم قبلة الله قبلة إلهي بعدنا عاص markaynu ra'yiga culimada qaar badan qabaan inaan qaadano weeyo aynu nira aayadu min ayati sifati kamid maaha lafdu alwajh huna bimaana alqiblati weeye ahadith baana tilmaamaysa salaada sunan oo laga hadlayay in culimada iyo saxaabo badan ku fasireen iyadoo sifatul wajhi la sugayo baa haddana la dhihi karaa aayadani aayatu sifaat kamid maaha sheekh iyo ardaygii baa masalada aad isugu maandhaafayo mid waliba meel fog buu aad uga buskiciyey fathamma wajhullaahi bimacnaa qiblatullaahi weeye macno kaloo la dhaho dhihi kara ma jiro faasid weeye macnaha kale waxaa aad ugu dooday ibnu taymiya macnahaas inuu ta'wiil faasida yahayna ardaygiisa ibnulqayim baa ku dooday marka waa is laba qowloo horey ahaayeen oo ijtihaadaadka mid rajaxay aayadda cumuumkeedana shiddatul khawf iyo naflu safarba waa la geliyaa haddaad safar tahay sunnana tukanayso qofka safartii waktina waa ku socdaa waddana waa hayaa haddii uu wakti ku socdaa wadda hayana waddadiisi iyo jihadiisu qibladana waa noqon kartaa dhinac kalena waa noqon kartaa haddii xataa qiblada uu u socdaay wadda ma toosnaatee way leexleexataa xataa laamiga gawaaridu hayaan somaydaan arag iyadoo jid toosan oo dirita laga dhigi karo baa u kas loo leexleexiyaa si darawalku intuu jid toosan isdhigta uusan u seexan jiradan iska ilaali tanna iska ilaali si uu leeyahay inuusan seexan oo soo jeedo baraarugsanaadaha ka mid a falsafada ka dambaysa waayo jidkii xagga u leexan haddana wuu soo noqon haddana wuu noqon aakhirka bilowga iyo dhammaadkiina isku aadan yahay baa dhici karta ama ku dhow yahay waddadii way leexleexanaysaa haddaad gaadiidba saaran tahay oo lugaynaysana geed bay ku soo bixi waddadu way leexan meel yaraan dhaadhacahayn bay togii ku soo bixi oo dhinaca way u leexan oo meel dhaadhacay doonan adigiina waad socotaa salaatuka haddaad tiraahda waktigii waa kaa dhubi haddaad tiraahda lagu yidhaahda laguma ogolana dee intaad safarta tahay salaad sunnaaba ha tukani weeye faradkaa ciriiriya allaahu ah qofkii cibaadadii inuu badiyana waa la rabaa saa darteed sunnadu baabka waa la ruqseeyaa qofka safarta oo adoo jidka saaran meeshaad rabtana u jeeda iska tukaa lagu yidhi waa la faahfaahin doonaa marka falilmusaafiri musaafirku wuxuu xaq u leeyahay atanafulu inuu sunnaysto raakiban isagoo oo gaadiid saaran wa maashiyan isagoo lugaynaya oo socda wa in qasura haba gaabnaada safaruhu safarkiisa fain kaana raakiban hadduu yahay see qiblada u qaabilaya u tukanaya waata faahfaahinteeda fain kaana raakiban hadduu gaadiid saaran yahay
oo wa amkana ay u suuragal tahay istiqbaaluhu qibladan u jeedsado wa itmaamu rukuuci wasujuudi rukuucdii iyo sujuuddiina uu dhammaystiro fii maxmilin meesha uu saaran yahay iyo baalka kooraha iyo waxa uu dul saaran yahay maxmalku gaadiidka geela kala saaraa la yidhaahdaa aw safiinatin ama markab iyo doonba uu saaran yahay diyaarad iyo gaarina ku dar hadda oo lazimahu istiqbaalkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii in la dhammaystira laazim bay ku tahay markab baad saaran tahay markabkiina dhinaca Maka iyo Sacuudiga uu sii socdaa qibladii halkaas uu haystaabay markaad waxaagii miisaantay iyo qalabkii baarista iyo bay ku sheegtay qibladaad u jeedaa markabkii iyo tareenadii haddii la furo tareenadu waa la seexdaa tareenadu qolal la kireystay waxay leeyihiin fadhigii laho sariirtii la seexanayay laho musqushii lagu qabaysanaya baafkii leh kuraaskii iyo miiskii leh tareenadii waxaa lagu daray suuqyo laga adeegtay leeyihiin qaar waxaa jira dabaana la fuulo dabaana makhaayadi iyo dukaame iyo uu leeyahay marka dambe waxaad soo wadaa maan ku iri meel banooni lagu ciyaaro waxa ku dartaa baad soo wadaa marka markabkii waa taa saaran tahay tareenkii baad saaran tahay sidii qof fadhiyo taagan baad tahay xagga u jeedsan kartaa taagni waa ku tukan waa sujuudi xagga hadaba qibladii aad u jeedsan karto ama horay ha ahaato ama gadaal ha ahaato marka qibladood garanayso gaadiidkaad saaran tahay inaad rukuuc iyo sujuud dhammaystiri karayso maxaa xaraj oo kuu kalifaya ciriiriba ma jire waa kuu suuragalay qibladii qaabil sadarteed fa in kaana raakiban hadduu yahay nin gaadiid saaran oo amkana ay u suura gasho istiqbaaluhu qibladii inuu jeedsado wa itmaamu rukuuci wasujuudi sujuudi iyo rukuucdiina uu dhammaystiro fii maxmilin meesha uu ku xambaarsan yahay lagu xambaaray saaran yahay aw safiinatin ama dooniya markaba uu saaran yahay lazimahu waa ku waajibi waayo amarka sharciga ee fawalluu wujuuhakum ahaa oo faatuu minhu ma statactum la yidhi hadda waad awoodda adigu wain lam yumkinu haddayna suuragal ahayn gaadiid baad saaran tahay suuragal kuuma aha inaad sujuuddo oo rukuuc iyo sujuud aad dhammaystirto ama meelaad istaagto ood kuwa tukato maba lahaba bas baad saaran tahay diyaaradahan ciriiriga aad saaran tahay weli diyaarad meel fiican oo lagu tukaday leta Sacuudiga arkay qayb yar oo musallo oo lagu tukaday leedahay marka salaadu markay ku qabato qaybtaa yar oo 3-4 qof qaada oo qibladii calaamadeedii ay ku sawiran tahay baad geli Allahu akbar darabtana waad aadaami idinku diyaarad wadaad iska dhex istaago Allahu akbar ka dhaxay maaragtay dad baa loo xirxiray inta diyaarad ka dhaxaadaameen nimanka reer galbeedkii baal cabsi aba ruuci baa galay ilaa September intii ka dambeysay lana baa diyaarad baa ka duushay 3 nin oo Turki ah oo Turkiga u socotay hawada markay gashay salaadii u soo gashay mid baa aadaamay meeshii dhaxdeeda isaga tukadeen waxay dhahan wareey halka istaag annagana safkan baan ku daba istaagaynaa kii bayloodka markuu arkay afka isa saareen intay tukanayeenba diyaaraddu kama fogaanin ee boodka ka soo kacda lagu celiyay nimanka baaritaan lagu kacay waxa la yiri nimanka xilliga tukanaya adduunyada ay macsalaamaynayeen oo isqarxin rabaano Allahu akbar soo maqlaysaan waa tii filmadii la September soo washaan adduunkay macsalaameen oo isqarxin rabaan ka gaadha qasab ku dajiyay durba intay tukanayeen hadii la baaray nimankii wax laga waayay diyaaradda saacada kadib dib saakacda marka dadaan khatar ka cabsanayeen mararka qaar kood diyaaradda waa lagu dhex tukan karaa say u kala waawan yihiin way diyaaradan labada dabaq oo kaleeto meel weyn oo ku tukata waa heli hadaba dad qiblada qaabili kara dhamaystiri karta la garay way lam yumkinu hadayna suuragal ahayn lazimahu waxa ku laazima al-istiqbaalu qiblada inuu u jeedsado inda taharrumi markuu xiranayo takbiratu al-ihram ki Allahu akbarta faqat oo kaliya in sahula haday fududahay taalafteeda haday ku fududahay markaad xiranayso baad qiblada u jeedsan say ku fududaan kartaa marka bian kaanat waa inay tahay daabadu waaqifatan mid taagan gaadiidku waa taagan yahay dhanaca rabtaa u jeedsan kartaa kow
oo wa amkana ayna suuragal tahay inxiraafuhu isagu inuu leexdo oo qiblada u jeedsada qofku iyadoo iska taagan gaadiidku aw taxriifuhaa iyada inuu leexiyo aw saa'iratan ama waa socotaa sahlatan waana mid fududoo dhagan nugul wa zimaamuhaa hoggaankeeduna biyadihi isagaa gacanta ku hayo wuu u jeedin karaa ama gaariga adigaaba isteerinkiisa haya qibladiina waad garan kartaa intaad aayar qaboojisato markaad xidhan rabto bal xagga qiblada saa ugu jeedi allahu akbar dheh kadibna kala jirayo dhaqaaq waa lagu ogolyahay hadday kugu adkaato ama gaariga adigaba ma wadid gaari aad adigu rakaab ka tahay ta salaad baan xidhanayaaye qiblada igu yar jeediya wuu ka sii jeediyaa ma lagaa yeeli ma jirta lagaa yeeli maayo mas'aladu intaa waa in shaqa haddii uu dhibo biyaan kaana daabadu waa inay tahay iyo gaadiidku casiratan mid adag oo madax adag aw maqtuuratan ama mid meel kale laga hagayo awrkaagii baad saaran tahayba laakiin awrtii isdaba socotay buu mid kaleu ku daba xihan yahay keligii ma leexin karti xarigiisu awrka kale dabadiisu ku xihan yahay ama waaba gaadiidka hadda aan raacno oo adigu darawal kama tihid gaarigii baad saaran tahay laakiin darawal kama tihid qibladiina uma jeeda adna ma jeedin kartid intaa hadday adkaatana falaa waajib kuguma aha inaad qiblo u jeesatee dhinacaad usii jeedo baad u xihan intaasoo dhani nabiga calayh salatu salaam waxaa ka sugan markii uu salaada doonayay inuu tukada isagoo sunno ah salaad sunnaa uu tukanayo kaana yusallii calaa raaxilatihi xayu tawajahat gaadiidkiisuu isaga dul tukan jiray ma allaalay meeshay usii jeedo hadduu faral tukays yidhaahdana waa ka degi jiray salaadaha sunnadaa lagu khasisay meeshay u socotana waa loogu tukan karaa buu xadiidkaa tilmaamay xadiid labaad xadiidka waa saxiixeynka xadiid labaadoo nabigaa tilmaamay sala allahu alay ali wasalam in markii ay salaada uu xiranayo uu qiblada u jeedin jiray kadibna dhinacuu u socda uu aadi jiray intaasoo dhan waxaad ku dartaa waajibku waxaa weeye hadba wixii la awoodo waxaan la awoodinna waajibkiisu waa dhacaa maxay noqotay sunnada meel kastaa loogu tukan karaa faralkase maya haddayna shiddat lkhawf ama xaalat lcajzi oo gaadiid aadan lahayn iyo gawaari aad saaranta aynan ahayn laba markii la xihanaya qibladaa loo jeedsadaa saddex haddii aad kari weydo laa wujuuba maca alcajzi intaa markaad isku soo ururiso intan laguu sheegay baa kaaga soo bixi intaa hadda laguu sheegay baa kaaga soo bixiyo sidaasay sax ku tahay ayb taa waa xirashadii salaada waxaad intaa adilada ugu dartaa in culimmadu qaar yidhaahdeen salaada sunnada ee safartay ku soo degtay qowluhu tacaala fa aynamaa tuwalluu fatama wajhullaahi salaaday xiro tahay jidkaagiina socotay oo gaadiid fuushay ninkii lugeynaya waa inoo iman doonaa isagu wayuumi wuu tishaarayaa ilaa maqsadihi dhinacuu u socday isagoo u jeeda birukuucihi rukuucdiisii iyo wa sujuudihi madaxuu ku midaarayaa oo ku ishaarayaa madaxaad ku tilmaami adigoo gaadiidkii saaran oo jidkaagii socda oo dhinacaad u socotay ama qiblada ha ahaado ama dhinac kale ha ahaadee u socda baad rukuucdii iyo sujuuddii madaxa ku tilmaami sujuuddaana sii hoosayn wayajibu waxaa waajiba kownu sujuudi inuu noqdo akhfada mid ka hooseeya rukuucda xaddaad gaarsiisay meel kasii hoosaysaad gaari wayakuunu waxaa waajiba kownuhu sujuudda u celiyo qaacidadii carabiga soo ma ahayn damiirka sidiisaba aqrabu madkuurin baa loo celiyaa haddaan wax maanicoo diidayaa jirin wey rukuuc iyo sujuud yaa horeeya yaa dambeeyey sujuud baa dambaysay marka sujuuddu waa inay sii hoosaysaa asalku waa xadiidkii jaabir radi allahu canhu wa ardaahu ee asxaabu sunanku ay wariyeen culimmada qaarna yidhahdeen saxiixun calaa sharti alimaami muslim wey xadiidkaa wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alayh alih wasalam wuxuu ii diray baahi dan buu ii dirsaday jaabir baale
dantii markaan soo dhameeyey baan soo noqday isagoo gaadiidkiisii saaran oo dhinaca bari u jeedoo tukanaya oo weliba madaxa ku tilmaamaya sujuuduna rukuucda ay ka hoosayso hada xadiidka imaamu tirmidi markuu wariyay isagu wuxuu leeyahay walcamalu calaa haada cinda caamati ahli lcilmi ahlulcilmigoo dhan saasay xadiidkaa u qaateen ugu camal faleen buu leeyahay laa naclamu baynahum ikhtilaafan wax iskhilaafa iyo isku diidan yihiinoo mas'aladaasa ma ogin ahlucilmiga dhexdooda dhib uma arka uu sii faahfaahiyey maxay raaceen laa yarawna ba'san dhib uma arkaan an yusalliya arajulu calaa raaxilatihi tatawucan gaadiidka dushiisa inuu ku sunnaysto xayumaa kaana wajhu ila alqiblati aw gayriha ama qiblada ha u jeeda ama meel kale ha u jeede culimmada wax khilaaf oo dhexdooda ka taagan maba ogin buu leeyahay imaamu tirmidi raxima allahu tacaala xadiidkuna waa ku cadya haddaba rukuucda iyo sujuuddu ha kala hooseeyaan ilaa ugu dambays halkeen gaarsiinayaan walaa yajibu waajib ma aha gaayatu wuscihi inta ugu badan ee u awoodo hoos usii foorarsa maaha madaxa waxooga yar rukuucdaada ku tilmaanto sujuuddana meeshii waxooga yar dhaafiso kugu filan yuumiu iimaaan wey madaxuu ku tilmaamayaa inuu rukuucay iyo inuu sujuuday walaa wadcu ljabhati wejiga inuu saarana waajib kuma aha cala daabati gaadiidka dushiisa ama kursiga kaa horeeya wejiga inaad saarto kurka haddaad kuraas gaari ku fadhido waajib ma aha inaad madaxa ku tilmaanto kalana hoosaysuunbaa muhima falow takallafow hadduu isku dhibo jaaza bannaan dembi baa samaysa la dhihi maayo laakiin waajib kuma ahayn intaasina cumuuman wax khilaafoo saasa kama jiro adilada waa ku cadda qofka waa qofkii gaadiidka saarnaa qofkii lugaynayay ka waran anuu safar baan ahay waana lugaynayaa maadaama aan lugaynayo sunnadaydii ma isaga tukan karaa anoo sii lugaynaya markaan xiranayo intaan qiblada u jeedsadoon allahu akbar ilan cidi haddii ima hagaysee iska socon karaa faatixadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo ataxiyaadkii iyo dhaxa asalaamu calaykum tayda horey muusii dhammaysan karaa waxbaa lagu ogol yahay laakiin way ka yar adkeeyeen sababta lagugu ogolaanayo waxay yidhaahdeen ninkan waa musaafir gaadiidka saaranna waa musaafir sunnadii labaduba waa u baahan yihiin socodkii iyo waktigii horay inay cagta usii qaadaanna waa u baahan yihiin kan gaadiidkaa haddii loo ogolaaday nafsulcilla xikmaddu waxay keenaysaa kan kalena in nafsulcilla loogu ogolaado laakiin daliil cadoo gaara iyada ma laha walmaashii qofka socdaay yarkacu wayasjudu waa rukuucayaa waana ku sujuudayaa cala alardi dhulka wayamshi fi lbaaqi inta kalena wuu iska soconaya faatixadii atixiyaadkii wey markay rukuucdu timaado waa inuu jeedsado oo dhulka ku rukuuco si fiican u rukuuco dhulkana ku sujuuda wayushtaratu listiqbaalu inuu qiblada u jeedsadana waa shardi fi lixraami wاlrukuuci wاsujuudi faqad markuu xiranayo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo waayo gaadiiduu saarana yahay oo leexinayana ma laha cid kaleoo gaar u hogaaminna ma laha faatixada qiraa'ada dheeraysa haddaad rabto ilaw haddaad rabto ragcadda koowaad juz ku akri ama albaqara oo dhan ku akri intaa jidkaaga soco markaa haddii hal saac qiraa'ada intaad dheeraysata ama juzcamaad ku dhammaysaa sii socoto markaa rukuuc dhawarkii taagnidii socodkii nasashayba ku yar noqone fadhigana ku sujuud iyada lafteedu jimicsi iyo nasashaha kuu noqoto kadibna halkaagii kasii wado markaad dhammaysato sujuudana halkaa hore kasii soco ataxiyaadkii ataxiyaatu lilahi wasalawaat halkaa kusii qadaarta farta sii dhaqdhaqaaji assalaamu calaykum assalaamu calaykum hadhow dheh salaaddii sida loo fududeeyey iyo inagu saan wax maalaa yacni isaga mashquulsanahay safarteenna ma aragteen halkanaad ka safartay 5, 6, 7, 8 saacadood baad bas sii saaranta waxaa laga yaabaa mar inaad hahamsato waxaad qabata male meelaad wareegta male cidaad la sheekaysata male makhaayadaad gasha male warar aad dhegaysata male qof aad waraysata male meeshaad iska fadhidaa mar lul maa qaban mar hareerahaasu iska fiirfiirin war waxaan wakti iyo saacaad kugu socdo wey waxaa loogu talagalay xilligan safarta aad maxbuuska u tahay bal horta kaydkii aakhira wax gasho koloo waad fadhidaa waad fadhii intaana maskaxdaadu waxun bay ku maqnaan
hadhowna adoo eber ah unbaad meesha u socotay gaari maanta oo dhan fikir adugu halkaasaa tagtay oo hebelood wada safarteen iyo hebelood israacdeen iyo hebelood arrin ka heshiiseen iyo hebelood isdagaasheen iyo hamigaa unbaad maanta oo dhan kala gediyo kan rog oo kan gediyo hebelood dagaalka meeshaa ka dhacay warkaasaa lasoo sheegayo haye saad isugu akhriyaysa keligaa meeshii waad gaadhay maskaxdaadu waa daalan tahay wax natiijooda haysood ka gaadhayna ma laha aakharana waxba maadan geysanin sharcigu wuxuu kuu fududeeyey khayrka saad u kasbato intaabaad jidka sii saaran tahay salaada badso waa tasbiixsan kartaa adkaar baad akhrisan kartaa innaga laakiin ninkii shaydaan ahaa markaad wax akhri tiraadaba buug cusub buu kuu furi hadda waayahan mid buu inugu soo kordhiyey markaad wax khayr samee dhahdo telefoonku buu kugu jeedin bahalkan jirni ama internet iyo chat buu gelin ninkii gala ama bilhebel la hadal buu ku dhihi lacagtiina kaa dhammaatay wax xikmadooda la hadlina lama arko waxoogay faraaq iyo cidlaad dareemaysaa mada kitaab qur-aan iska sii qaadatay haddaadan qaadan karin subxaan allah iska dhe salaad iska sii tuko maanta oo dhan iska tuko salaado badan adoo tukado qur-aan badan akhristay adkaar badan akhristay tag halka haddaad ka baxdaan hadda oo ad gaarisa aadaan 15 ilaa 20 juz baad sii akhriyi kartaa intaad dhex sii socoto waa 6 saacadood 6 saacadood markaad ugu badan tahay nus saaciba juz waad akhriyi kartaa caadi markaan u fadhina 20 daqiiqo juzka lagu akhriyaa haddaad 20 daqiiqo juz ku dhamayso waa 18 juz soo baa 6 saacadood min 3 juz nus ka dhig 12 juz baad akhriyi kartaa labada iska daa faqad ka ho 10 akhri 10kii 5 tooro 5 juz si akhri lagu kari maayo shariicadu intaa waxay saa u samaynaysaa abwaabta khayrka inay sahasho fududayso wixii aakhara la geysanayana dadkii u fududaado laakiin haddaan iimaan xoog badan oo ilaahay ku xidhan jirin wax kastoo lagu fududeeyo waxbaa kaa hoos bixin waxbaa kaa mashquulin wayushtaratu waxaa sharti ah dawaamu safarihi safarkiisa inuu daa'imo waluzuumu jihati maqsadihi dhinaca uu socdayna uu laazimo ilaa ila alqiblati qibla inuu ujeedsanaya maahane laba mas'alo buu halkan ka hadlay mas'alo istiqbaalkii weeye masalana ruksadii guud weeye ruksada sidaasihi waxaad haysataa intaad musaafirka tahay adoo salaadii ku jira haddii aad magaaladaadii soo gaarto oo baskii ku soo dhex istaajiya ama diyaaradii soo cagar dhigato ruksadii way kaa dhammaatay ruksadii safar ku xirnayd haddaad safarkii ka baxdo ruksadii way kaa dhammaatay saas darteed si qiblo jihadaad ujeeddaa isaga sii tukato intaad salaadaa ku jirta waa inaad safar ahaataa dawaamu safarihi safarkiisu inuu weli baaqi yahay baa shardi ah haddii safarkii dhammaado ruksadiina way dhammaatay lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman ciladuu xukumku ku xiran yahay hadday joogtana waa la heli markii ay meesha ka baxdana wuu ka bixi talabaadii waluzuumu jihati maqsadihi dhinaceed u tukan kartaa wuxuu ku leeyahay waxaan xaaja loo keenay iyo daruura qaacidaduna sharciguna waxaa weeye addaruuratu tuqadaru biqadariha daruura hadday timaado inta baahida lagu ekeeyaaye in la waasacsado lama ogola qibladii meel bay ahayd salaada shardigeeduna qiblu ahaa duruuf iyo xaajo keentood dhinac kale u socotaa lagugu ogolaaday keliya waxaa lagu ogol yahay inaad ama qibladii u jeedsato ama dhinacaad u socotay iyo jidkaagu hadba meeshuu kula maro aada usii tukato dhinacaasaad u socotay qibladiina gadaal bay ahayd horeyna maadan u tukanin gadaasho qibladiina maadan u jeedsanin xaggaasaa isaga jeedsatay kale salaadda waxba kama jiro waayo xagga maxaad ugu jeedsatay haddii jidhku kula leexda la garay laakiin gadiidkaagi intaa iska istaagtay baad dhinacii ka leexatayo waxoogay meeshaasoo baraag biya inaad ku leexataa rabtaa markaas de baahidii lagu ogolaa waad ka leexataye salaada ma wadan kartide horta intaad jidka saaran tahay salaada soo dedejiyo soo gaabi waa salaamu calaykumta ku gebagabe kadibna meesha baraagta iyo biyaha iyo geedkaad harsanayso u leexi waayo geedkaad harsanaysa meesha u socotay maaha inaad iskaba sii jeesato intaad istaagtay dhinaca kale u jeedsato salaada isaga dhamaystiratana lama ogola waxbaan yar daawanayaayo halkaa meel buuraan dul soconnaa agga u yar leexi
saa inaad u fiiriso wariyaa biyaha shalaalaadka iyo burqanaya iyo geedaha quruxdooda inaad ka daawato lama ogola waayo xaajada lagu ogolaa daruuradu dhinaca dantaada u socotay ahayd tanna dantaadii maaha wadaruuratu tuqadaru biqadariha dheh fain balaqa hadduu gaaro gurigiisii fii anaa'ihaa salaadii dhexdeedii manzilahu gurigiisii uu soo gaaray aw maqsadahu ama meeshii u socday buu soo gaaray aw baladan ama magaaluu soo galay oo yimid wanawa liqaamata bihi beledkii iyo maqsadkii inuu ku nagaadana wuu go'aansado xukmu lmuqiim buu qaatay wajaba itmaamuhaa salaada in la dhammaystiraa waajiba birukuucin wa sujuudin waistiqbaalin rukuuc iyo sujuud iyo qiblada loo jeesoo dhammaystiran baa lagu dhammaystiri wa cala alardi dhulka aw daabbatin gaadiid waaqifatin taagan ilaan salaada sunnada marka horeba inaad istaag ku tukata laazim ma ahayno adoo gurigaaga iyo masaajidka joogaad fadhi isaga tukan kartaa haddaad awooday taagnidana nisfu ajrilqaa'im baad leedahay ajrilqaa'im baad leedahay oo taagnidu sharti salaada ka mid ma ahaynba salaada sunnada ah ayib qibladii ha loo jeedsadaan usoo noqonay marka intaa waa dadkii laga cafiyey qiblada inay qaabilaan qofkii qiblada qaabil la yidhi waman xadara alkacbata kacbada ninkii xaadiree taga iyadii lafteedii lazimahu waxaa ku waajiba istiqbaalu caynihaa iyada lafteeda inuu ku aadiyo salaada waajib ku ah dadku waa laba qiblada nin kacbadii arka oo ag taagan iyo nimaan kacbadii arkin oo aanay u muuqan labadaasaynu u qaybsannaa inta aragtaay waa in yar waxaa loo badan yahay intaan arkin haddaba inta masjidulxaramka ku dhex tukanaysa hadda oo weliba kaga tukanaysa meelay kacbada bidhaanteeda ka arkayaan iyaga salaada faradkoodu waa istiqbaalu caynihaa inay kacbada marada madow ku dhegan tahay ay ku aadaan weeye hadday ka yar galan martay istaaggii salaadooda waxba kama jiro waayo cayntii buu qaabili karaa isagaan dadaalin oon uba fiirsanin ama saad gebgebgebgeb ulahayd baaba adoo baashii muuqataad halkaa qab uga siisay markaad dhexda marinaysaa waa dhammaysaad aragtayba inay qibladii kacbadii halkaa ka muuqato adnaad dhinac uga yar tukatay salaadaada waxba kama jiro waman xadara alkacbata kacbada meesheeda ninkii taga lazimahu waxaa ku laazima istiqbaalu caynihaa lafteeda inuu qaabilo iyada ku aadiya salaada waajib ku ah hadduusan qaabilin falow istaqbala alxijra xijriga ama shaadarwaanka ama xatiimka hadduu qaabilo aw kharaja ama uu ka baxo bacdu badanihi jirkiisa qaar ka mida canhaa qiblada ku aadankeeda dhinac buu ku aadiyey dhinacna waa ka yar baxsan yahay lam tasix salaaddii asixi mayso waayo qibladii kacbadii maadan qaabilin xijriga waxaa la yidhaahdaa qaybta gidaarka yar uu ku wareegsan yahay kacbada markii aad tagto laba rukni yamaaniyeyn baa la yidhaahdaayo waa kan dhagaxu ku jira xajarul aswadka ee tawaafka laga bilaabaye gacanta loo taagaye hadda haddii aad tagtaa ilaahay ku geeyo ninka askariga ee xarigga ka lalmada dadka uu kala celinayo wey midigtaadana nalka cagaaran ee ku aadan leh midna waa kaa markaad taagan tahay koonaha dhabarkaaga ah labada yamaaniyeyn baa la yidhaahdaayo waa kuwa innaga hadda xaggeenna soo xiga labana dhinaca madiinay xigaan shaamiyeyn baa la yidhaahdaayo waa labada oo dhinacooda marka la tago gidaar yar wareegsan yahay oy laba irdood u dhaxayso dhulkaasi waa aasaaskii qawaaciddii ibraahim kacbada laakiin reer quraysheed markay dhisayeen kharashku intuu ku yaraaday ay ka soo gaabiyeen gidaar yar baa lagu wareejiyey mar shaadarwaan baa lagu dhihi mar xijri baa lagu dhihi mar xatiim baa lagu dhihi isku macaani wey meeshaa in loo jeedsada lama ogolo waayo kacbadii dhisnayd maaha kacbadaa loo jeedsada laleeyahayna intan dhisan waaye haddii ilaahay qadara maalin dhismaha in lagu daro ta loo jeedsaday ka mid noqon laakiin intaynan dhisnayn iyada looma jeedsan karo ninkii la yidhi kacbada tawaaf dhanka kalena inuu dhexda mara lama ogola waa inuu kor kala wareegaa haddaad dhexda marta kacbadii kumaadan wareegina waa dhex martay dhinaca kale ixtiyaadka iyo axwadka labada xaalaba saa keenaya saas darteed ninkii halkaa qaabilay xijrigaas ama dhinacna kacbadii ku aadiya geeskiina ka baxsanaadeen jirkiisa wada qaabilinin
salaadiisu ma asaxayso waayo faradkiisa waajibkiisu kacbada toos inuu qaabilay ahayd wuuna awooday mana yeelin ilaa an yamtadda inuu dheeraado safun baciidun saf kacbada ka fog fii aakhiri lmasjid alxaraam masjid xaramka aakhirkiisa gadaasha kuwa oo kaleeto walow qarubuu hadday soo dhowaadaanna la kharaja bacduhum qaarkood baa ka bixila hadday tahay dhib ma laho dadkii ka fogaabay la xukum noqonayaan fa innahu yasixu lilkulli dhammaan waa ka asaxayaa qofkaasi waa qofkii kacbada arkayey laakiin banaankeeda taagnaa ninkii bartankeeda galana ka waran salaadiisa waman sallaa ninkii tukada daakhila alkacbati kacbada gudaheeda oo wastaqbala u jeedsada jidaaraha derbigeeda u jeedsada aw baabahaa ama albaabkeedaba u jeedsada almarduudi albaabkoo la soo celiyo soo ceshan aw ilmaftuux ama albaab furan buu u jeedsaday wacatabatuhu halkiisa hoose ee albaabkeeda hoos ka qabatana uluaa diraacin taqriiban dhudhun 3 meelood labadii weeye saxa salaada way asixi wailaa falaa haddii kale samaya salaada kacbada gudaheeda ma lagu tukan karaa haa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiidkii cabdillaahi ibni cumar ee bukhaari iyo muslim wariyeen inuu kacbada galay ibni cumar lama gelin marka wuxuu leeyahay ibni cumar markii laga soo baxay baan bilaal waraystay nabigu muxuu sameeyey baan idhi buu yidhi adaa raacay oo la galaye muxuu sameeyey markaasuu wuxuu yidhi kacbadu horta 6 tiir bay ka dhisnayd markaas wuxuu yidhi nabigu 1 tiir midig buu iska mariyey 2 tiirna bidix bay ka ahaayeen 3 tiirna gadaashiisay ahaayeen derbiguu u jeedsaday oo nabigu waa tukaday halka waxaad ka garatay horta kacbada waa la geli karaa gudaheedana waa lagu tukan karaa gidaarkeedoo loo jeedsadayna salaadu way ku asixi saa darteed wastaqbala jidaaraha albaabkoo la celiyeyna jidaarkeedii qayb ka mida weeye aw baabaha almarduudi ku dar aw ilmaftuux albaabku waa furan yahay albaabkana waa u soo jeedsaday lan kacbada haddaad ag taagan tahay ama aad ku jirto waqooyiga koonfur jeedsa lagu dhihi maayo kacbadii waaba dhex taagan tahay dhinaca doonta u jeedsa wey laakiin dhinaca u jeedsatay waxaad qaabishoo kaa horeeya waa inuu jiraa haddii albaab gidaar yahay waan garanay albaabkii oo soo xiran hadduu yahayna la garay albaabkii oo furan ka waran waxaan leenahay 2 mid weeye albaabka qaybta hoose qaybna waa albaabka furnay qaybna waa qaybta hoose albaabka qaybta hoose catabaa la yidhaahdaa catabatulbaabi albaabka catabatulbaabi baa la yidhahdaa meesha hoose ma dhulkay ku dhegan tahay mise kor bay u soo yar qaadan tahay marka laga eega meesha adigu taagan tahay hadday wax yar kor u qaadan tahay dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii way ka asixi oo kacbo waad qaabishay haddii kalena maya hal su'aal baa kugu haray marka intee laga keenay dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii in la yiraahdo xagee laga keenay meel cidla lagama keenin markii axaadiistu ka hadlayeen sutratul musalli oo inoo iman doonta bay intaa lagu qiyaasay مثل مؤخرة الرحل باثلثي ذراعين هاي ninkii intaa dhigtay sutru dhigtay oo uu qaabilo u jeesaday uu sharci xukumay haday cataba inta la ka horeysa waa u jeesato waa ka horta Allah way halkaas la dabada loo geliyadan inta warka uu cadi aan maleynaya intaasi waa qofkii Kaabada arkayay ama banaankeeda ha jooga ama gudaheeda ha gale qofkaynan u muuqanin Kaabadii ama Makka ha joogo ama hatta masjidka xaraamka banaankiisa ha joogo ama sufuuftiisa damba ha joogo ama innagaba ha noqdeen muxuu sameeyay ilaahay wuxuu leeyahay fawallu wujuhakum shatrahu wajigiina qiblada jihadeeda u jeediyaa leeyahay waayo innaga caynteedii ma asiibna hadii la inagu farad yeelo maba awoodi kareenaan ogaano hadda halkan u jeedsanay Kaabadii inuu lafteeda ka duldhic boorbaad u haysaa qiyaasta soo dhaweysay laakiin ma hubtid mar hadii aadan hubin لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نبينا واسوكو ويو وحيري ما بين المشرق والمغرب قبلة يقول وحي كتيران إنك وحان كتيرنا كعبدا دينعا كونفورين مدينة دينعا وقوي بي كتيرتان إنه هذا مكان ساعة تكنه مدينة دينعا لوغا سو تكدا نينك حقا كسو تكدي وحال يري وحي بري يا قلبيد دخيه دينعا u jeedsato dhan dadaalo قبله وي انت سو اودا قف
wain kaana hadduu yahay qofku bimakata buu joogaa kow wa baynahu isaga iyo wa bayna alkacbatina xaa'ilun wax kala qariyey baa jira khilqiyun allah ku abuuray waxaas meesha waa buuriya wixii lamid aha aw taari'un ama waa wax gadaal ka yimid oo dhismiya wixii lamida falahu lijtihaadu inuu ijtihaado ku dadaala bal xaggee bay ahayd oo dhinacay ula badata u tukada u bannaan innagoo dhanna fawalluu wujuuhakum shatrahu baan sidaa ku nahay ayib wain wadaca hadduu dejiyey markii hore mixraabahu mixraabkiisii cala alcayaani aragti waagii hore meeshuu bannaan baybay iska ahayd oo kacbada bannaanadaasaa laga soo arki jiray nin baa waxaan ka hadlaynaa nin baa guri dhistay ama masaajid yar mixraab buu samaysto wuu hubaa kacbada caynteediibuu ku aadiyey kadib baa isaga iyo kacbadii dhexdoodii guryihiya laga dhisay hadda ma arko muxuu samayn ninkaasi wain wadaca haddii uu dejiyey oo uu dhisay mixraabahu mixraabkiisii cala alcayaani aragti buu ku dhisay markii hore kacbada waa arkayey sallaa ilayhi mixraabkaasuu u tukan abadan weligii ma ka leexan karo hadda ma aragtid laakiin markaad kan samaynaysay dhismahan calaamadan waad arkaysay marka calal cayaani bay ahayd ma khilaafi kartid waan ijtihaadiyo mixraabkan ama waxsi ka yahay ma dhihi kartid isagana aad raacdo wey waman qaaba canha ninkii kacbada ka maqan isagu ma arko sideenoo kaleeto inaad qibladii u jeesatana waad rabtaa fa akhbarahu waxaa u sheegay bihaa qibladii dhinacay jirto maqbuulu riwaayati nin warkiisa la qaadan karo qof warkiisa looga qaateena oo la aamini karo baa wuxuu ku yihi dhinacaa weeye qibladii can mushaahadatin anaa arkay uu ku yidhi haatuf baan ku arkay mehe ama wuu kaa dheeryahay ama waxoogay waad yar indha darayso waa kaa indha fiiqfiiqan yahay laba tiir dhexdood wataan madow anaa arkuu ku yidhi ishaadiina way qaban weyday oo halkaa ishaadi way gaari weyday ama dad badan baa kaa horeeye ninkani de waa nin dheere adna dadkiibaa kaa qariyey isagiina waa arkaaye wataas intuu ku qabtay buu halkaasaa ugu jeedsa ku yidhi wajaba qabuuluhu inaad aqbashay waa waajib waayo ninkani yaqiin buu kaaga warramay anna waan qiyaasi baad ka hadlaysaa bari aan labada garab iqabo igu aadil markuu kugu aadiyana saa ugu tuko wakadaa yajibu sidoo kale waa waajib ictimaadu mixraab in la cuskado lagu saleeyo bibaladin magaalo ku yaala aw qaryatin qaryo yaksuru taariquhaa dadka yimaada ay badan yihiin masaajid magaalo iyo dad badan leh baa timid mixraabkii oo qiblada loo jeediyey baad aragtay meeshuna meer duur cidloo wax yimaado jirin ma aha waad ku tukano waa waajib inaad raacdo waayo hadduu khaldan yahay intaa muslima imanaysa in baa dhihi warmaalkan waa qallucsan yahay intaa muslimiin waa yimaadaan mixraabkana waa lagu tukadaa culummada maxaariibta difaacaysa oo jamhuurtihi fawaa'idooda waxay ku daraan qofka gariibka ee masaajka soo galay masaajka cidla aad soo gashay qibladii sidaad ku galaan magaalada aad ku cusub tahay kanaa lagu gartaa waa min fawaa'idi lmaxaariib bay yidhahdeen qof kastoo hadda masaaj ka yimaada iyadoo cidla uu yahay salaad tukanaya markuu mixraabka arko qibladii galay soo maaha shakiba ka geli maayo fawaa'idda maxaariibta wayay yidhahdaan ayib wa kullu makaanin intaa waa intii kale wa kullu makaanin meel kasta sallaa ilayhi nabi sal nabiguu dhinaciisa u tukado o u jeedsaday oo wadubida la koobay oo la xaqiijiye mawqifuhu meeshuu taagnaa mutacayinun waa waajib dhinaca in loo tukada salaada siirada taariikhda nabiga waagii hore waa la yaqiinay inta uu maray xadiidkii qisadii cabdilaahi bni cumar ee xajkii nabiga uu ka sheekaynayey ee madiine intuu ka soo bilaabay maka yimid dariiq kastoo uu maray iyo meel kastoo uu fadhiistay iyo geed kastoo uu harsaday buu ka sheekayay xadiidka bukhaari buu ku yaallaa dadkeennu hadda in xadiidkaas la fahmo way adag tahay keligeenna maa xataa carabta joogta culamo iyo caamaba way adag tahay in la fahmo waayo dhul baadiye ah la soo maray wuxuu ka hadlayaa waan lugaynay tog hebel baa nagu soo baxay geed weyn baa halkaa ku yiilay bidix baan ka marnay markaan dhaafnay dhagax baa nagu soo baxay hebel ahaa midig baan ka marnay halkaa markaan marayno jiiraan bidix u gallay geedka weyn ee bidix kaa qabanaya baan hoos marnay geedkiina ma jiro jidkiina lama maro laamiyaa laga dhigay nin haddaba laami gaari cayrinaya
baa jiiradii iyo geedkii iyo dhagixii 1000 sano ka badan ka soo wareegtay baa waxa la leeyahay waa lagu tilmaamay geed baan ag maray de waxa meesha lagu tilmaamaya meel aad garan kartaba maaha waxa kaaga sii dara ninku waa reer magaalo hatta nin baadiye ku soo lugeeyay yahay geed baa la hoos maray iyo waa laga yar jireeyay iyo meel baa laga dhaadhacay iyo si uu sawirka u fahmi lahaa kaasoo kale waxa la yiraahdaa iska akhri hal mid baad ka faa'iiday saxaabadu ridwaanullah alayhim si ugu dadaali jireen nabigu meeshu cag dhigay inay sheegaan halkaasuu maray kaasuu leexday nabigu Abdul Umar wuxuu ka sheekay marka halkaasuu ku tukaday salaada markuu halka istaagay geedka dhinaca buu wajigiisa ku aadiyay buu leeyahay meel saa iyo saa ahna labada lugood buu saaray hadday dhacdo inaad meeshii soo marto halkuu nabigu cagaha saarayna aad garato oo hubsato waatan meeshuu cagaha saaray geedku u jeedsadayna waa kan la yiraahdo meeshii baan ku tukan meeshii meel aan ahaynna waan ka yar jeedsan lagama ogola oo nabiga ma ka dadaal fiican tahay way qiblada maadaha ka garan og tii waa inaad raacdaa iyada taas uga jeedaa inaga laakiin hadda taasi suura galbeen oo ma ahaba wuxuu dhawaa busulay ولا يجتهد باجتهاده فيه ماشاس لا بتيامن مدق uga yar leexo ولا بتياسر بدix uga yar leexo kuma dadaali karo ويجتهد بهما بدك iyo bidix ku yar dadaali kara في غيره ماشي nabigu istaagay meel aan صلى الله عليه وسلم ومن المحاريب محرابيadana haduu hadii aad nin khabiir tahay jihooyinka iyo maqaayistana kala yaqaana ama qalab aad ugu kalsoon tahay baad wadataa وهذا تلفونadii ba waxa la soo dejiyaa barnaamijyada telefonadan xoog badan qibladii itijaahadiina ku xadido meesha joogtaad gelin magaalada iyo wadankaad gelin kacbadan ka rabaa baad leedahay barnaamijtan Google iyo wareegi dhag uu kugu aadinayaan ila 3-4 program baa jiro way fiican tahay ninkii telefoon xoog badan haysta inta ba inaad gashato kanaad fiirin meeshii baad calaamadaysan uu ku sheegay barnaamijka kalabaad baad geli dhag waa 3 nin oo wareysanayso maalin baan tijaabinay aan dheerayno 3diiba isku meel bay noo tilmaameen meeshan fadhinay masaajid noo dhawaabaan fiirinay meeshii buu masaajidka mixraabkiisa u jeeday marka barnaamij haddaad ku kalsoon tahay aqoon ama adigu aqoon waxan cilmiga nin bartay aad tahay oo masaajidka intaad fiirisaa tiraada amusan mixraabkiisu saxnayn bidix uu yar badan yahay midig uga yar bado midig buu baday bidix uga yar bado ijtihaadka waa lagu ogol yahay waayo maxariibtan bacala ijtihaadi baa lagu sameeyay la ala al-yaqin way lam yajid haduna helin qofki man yukhbiruhu qof u sheega an mushahadatin ana arkay ila wata ana arkay u baalatay jeeto ku ila ma haysan ijtihada uu dadaalaya bidalaa'il calaamadihi ya astaamaha buu eegayaayo xaqay ugu dhowdahay u eg tahay wixii uu kari karo kaashanaya فلم يعرف هذون قرني بابا قرن واي أو كان أعمى أما بين دول قفك بحال إذا قبلتي الجهاد الدلالة وحفير فيري نين دول محو فيري قرح فيري هوسك فيري برامجية برنامجية فيري سي جهاد وكلا تهي فيري هذين هذي تهي حدقها يضيح هي فيري جهاد هذا السعودية برية قلبي قبلوا كي كاتشر تي قياس نينك واين دول محو قياسا أما magaalada waad ku cusubtahay waabad salashay magaalada markaad ku cusubtahay ee gurigaad ku cusubtahay la yimaado badana waxaad wariyaha ninki guriga lahaa way xagee loo tukada waliba inaga meeshaanaba wax la gargartaaye hadii aad meel South Africa u sokayso laga bilaabo hadii aad tagto gurigaaga hadaad ka soo baxdo oo guriga jidkan kugu xiga tagto waa inuu nin kale ku sheegay dhinaca loo tukado dhinaca loo tukanayo ninka guriga la waa inaad weydiiso Yurubta hadii aad tagto iyo Westernka guri kasta oo timaada dadkii lahaa dhinaca u tuka waa inay ku dhahaan si baad u jaha wareeri adiga dhanaa hadduu qofkii si ugu wareero garanba waayo ama isagii uusan waxba eegi karin oo indhool yahay ama indha dareeyo muxuu sameyn qallada basiran qof wax arka buu ku dayan ودي وراد قبلة حاجات ترتا حاجة يا حاجة هي وايه زي اللي صاحب الجرام وايه وانت يقن واتك تبارك اجتهاد كنت كالو يري واتك تي
salaadii markaad ka baxday baad ogaatay meel cidla inaad u tukatay lafcad inaad toobin ku haysaa is ogaatay wain tayaqana alkhata haddii uu yaqiinsado hubsado bacda salaati salaada kadib bilijtihaadi uu ku tukaday acadda salaada uu soo celin sababtoo ah danni iyo malaad ku salaysay laba malihii waxaan hadda xaqiijinnay inuu qalad ahaa qaacidaduna waxay ahayd laa cibrata bilkhata'i lbayini khata'uhu qalad inuu qalad yahay ee caddaatay tiigsi ma leh anu saasaan ku waa ijtihaaday ijtihaaday caddaatay inuu khalad yahay salaaddii subax oo kale ka soo qaad waad ijtihaaday waad tukatay meeshii baad ku wardiday adoo wardinayay qoraxdii budh wejigaa ka soo tiri halkanaad joogtay uga bari biyaa loo tukadaa saa waagii saad u ifteemayba hortaada ay qoraxdii ka soo baxday waree dhammaanaa waalan mise wejigay waxa ka muuqda waa qoraxdii waxaad isgiijiseed waxoogay isadkaysaba banaanka isa soo dhigtay marka waad hubtaa soomaa meel qalad inaad u tukatay ama qadaadkaagay ka soo baxday sidii aad u tukatayna waa u fadhidaa waa dhici kartaa masaajidkii baa timid mugdi bay ahayd dhinacii mixraabkaad garan weyday halkaasaad u tukatay markii waagii soo ifteemayba saa mixraabka xaggaasu kaa jira dadkii qibladii dhinacaana u tukateenba ma ahaba waxyaaba badan baa dhici kara markii xaaladaha qaar yimaadaan haddii aada hubsato salaaddii waad soo celin waxaynu horey usoo marnay asaxu aqwaali waxaa weeye bisharti waktigii inuu weli joogo waktigii haddii uu baxay ijtihaadkaagiina aada samaysay laguma la asaxu lqowleyni inaad soo celiso intaasi waa qibladii qaabilitaankeedii masale sutratu lmusalli ayuu ku daray wuxuu yidhi marka wayundabu waxaa sunno ah lilmusalli qofka tukanaya an yakuuna inuu yahay bayna yaday hortiisa sutratun wax qarinaya uluaa diraacin dhudhun 3 meelood loo dhigay labadiina dhan ugu yaraan dheerarkeedu inta ugu yar weeye dheer ahaan halkan 2 mas'alo ku sheegay masalada koobaad sutradu waa sunno ee waajib ma aha buu ku yiri mas'alada labaadna miqdaarka iyo qadarka dheerarka sutrada ugu yar dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii weeye labada mas'alo halkan ku sheegay ama mas'alada hore horta nabigeena sallallahu alayhi wa sallam amar badan baa ka yimid umar wuxuu leeyahay qofkiina hadduu tukanayo fal yusalli ilaa sutratin sutraha uu tukado amarka asalkiisana waa wujuub marka kale nabiga alayhi salaatu wasalaam ficilkiisii baa intaa laga soo guurinayaa jamhuurta ahlul cilmina waxay dhaheen sutradu sunno weeye waajib ma aha waxay daliishadeen xadiid ibn Cabbaas xadiidka ibn Cabbaas waa saxiixaynka Bukhari iyo Muslim wuxuu ka sheekaynayaa inuu nabigu xilli xaj ay tahay mina ugu yimid waa xajatul wadaac oo fi aakhir xayaati nabiy sallallahu alayhi wasallam nabigu noloshiisa aakhirkeedii ah nabigu dilxijja hadii la xajiyay intii baaqigii dilxijja iyo muharram iyo safar buu noolaa horaantii mawlidna waa dhintay sallallahu alayhi wasallam waaba 2 bilood iyo waxoogay ama ugu badnaan 3 bilood oo wax dhiman buuba sii noolaa nabigu sallallahu alayhi wasallam aakhir xayaatihi way wuxuu leeyahay ibn Cabbaas minaan ugu yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka tukinay yusalli ila ghayri jidaarin wax gidaar oo hortiisa yilo u tukanayay oo qaabilina ma jirin ko dameer baan saarna fa arsaltu al-atana dameertii dhadigayd waan iska sii daayay aniguna safkii baan dhaxmaray salaadina waan ku xirtay haddaba erayga yusalli ilaa ghayri jidaarin bay jamhuurtu waxay ku fasireen sutra la'aan buu uga jeedaa qolyaha wujuub kalena way ka doodeeno waxay dhaheen may gidaar ma ahayn baa la yiri sutra ma lahayn lama dhihin laakiin fahamka jamhuurtu sutra ma lahayn bay hadalka ka fahmeen waxay dhaheen ka tagitaanka nabigu waa daliil inayna waajib ahayn waa qariina amarkan u sarfinaysa min alwujubi ila an-nadb wal istihbaabi
halkaasay jamhuurtu cuskadeen minhum shaaficiyatu baa ka mid raxmatullaahi calayhim jamiican mas'alada labaadi waa miqdaarka iyo qiyaaska ugu dheerarka ugu yar ay noqon karto qadarka dheerarku intuu noqonayo ugu badan qadar ma laha qiyaas ma laha mid kaa dheer iyo mid kulaagba waa noqon karaan laakiin inteebaa ugu yar baa ugu muhiimsan inta ugu yar wuxuu yidhi dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii weeye taana waxaa laga qaatay xadiidkii caaisha imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey caaisha radiallahu canha waardaha waxay leedahay nabigaa sala allahu alayh alih wasalam waxaa la weydiiyey can sutrati lmusalli waxeebaa musalliga sutra u noqon kara markaasuu wuxuu yidhi mila mu'khirati araxli rarka moqotinkiisa dambe oo kale rarka moqotinkiisa dambe oo kale sidoo kale waxaa muslim uu ka wariyey xadiid lamida طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu ardaah isna wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi qofkiin hadduu hortiisa dhiga mila mu'khirati araxli rarka moqotinkiisa dambe wax lamida falyusalli walaa yubaali man mara waraahu inta ka shaysa wixii maradan ha ka gelin mukhirati raxligii bay qiimeeyeen raxligan laga hadlayaay labadaba waa lagu itlaaqi jiray suuradan fardaha waa la isticmaali jiray faraskana kooraa la saaraa kooruhuna boqotin hore iyo boqotin dan buu leeyahay midna waa kan hore oo ama la qabsado ama xarig iyo xakamaha la geliyo wey kaasu waa yar dheeriya midna waa ka dambe oo qofku ku tiirsado oo gadaal ka haya kooraha qaybtiisa dambe ee gadaal ka qabato oo kaleeto weeye way noqon kartaa geel iyo awrta kabaalada ahaana way noqon kartaa laakiin ayda kabaaladeeni dheeraa maaha kabaaleeda dhalinyaradu garan maayaane geela marka la raro rarka geedaa lagu xiraa geedaha kuwana madaxooda xagga horaa la isku dhaafiyaa kuwana madaxooda xagga dambaa la isku dhaafiyaa kuwii horay madaxooda iyo kuwii dambe baa inta la isu keeno baa halkan dhex la iskaga xiraa kuwana xaggan la isaga xiraa rarkay xajiyaan marka la fuulayana halkaa koraa la fuulaa kuwa dambe taaganna kooraha qaybtiisii dambe oo kale ay noqdaan kuwa hore taaganna kooraha qaybtiisa hore oo kale ay noqdaan awrku markuu si fiican u socdo xarigga halkana la iska saartaa marka dambe iyo hoggaanka halkana la iska saartaa moqotin hore iyo moqotin dan baan anagu u aqaanaa laakiin igu dara lahjadaha soomaalida maxaa kaloo la yidhaahdaa dhalinyarada yararkeeda iyaga waxba weydiin maayo waxay yaqiineenba maaha laakiin sheekh abubakar maxaa kaloo la yidhahdaa ya kaldhaan iyo udbana waa la sheegaya kabaalana waa la yidhahdaa qaybtan dambe ee taagan weeye haddaba mu'khirada tan xagga dambaa muqadamada maaha taasaa markay qiimeeyeen waxay xilligaa curfiga iyagu isticmaali jireen intee lala ekaysiin jiray dhudhun mustawasit ah nin gacan gaaban oo cillin ana maaha nin gacantiisu dhowr mitir tahayna maaha gacan mutawasit oo dhexdhexaada 3 loo dhigay labadeed bay badanaa taagnidu la ekaan jirtay intaa wax ka yar sutradii la rabay maaha marka warka inuu cad yahay baan rajaynayaa ayib haddii aadan haysanin aw yabsuta uu fidiyo musallaa wuxuu ku tukanayo salli iyo sajaayad iyo gogolah inaad gogol fidsato intaa ku xayndaabnaatana sutra waa noqon kartaa buu leeyahay fain cajaza hadduu awoodi waayo khata wuxuu jeexanayaa khatan jeexid xariiqin buu xariiqanayaayo aaggaasuu oodanayaa buu leeyahay oodashadu xadiid daciifaa ku soo aroorayoo uu nabigu leeyahy alayh salatu salaam hadduu qofkiin tukanayo hortiisa waxa dhigo fain lam yajid falyansib casan ulha ka taago fain lam yakun macahu casan falyakhua khatan jeexitaan ha jeexo kadib wixii mara dhibi maayo xadiidkaasi xadiid daciifa weeyo xadiidka muxadisiinta waxay u yaqaanaan muaribka la yidhaahdo baa miaal loo soo qaataa xadiidkan walidalika imaamu alciraaqi raximah llahu tacaala alfiyadiisi fii musalax alxadiid markuu xadiidka muaribka miaalinayay wuxuu ku miaaliyey kalkhai lisutrati jami اlkhulfi walidiraabu muujibun lidacfi
كالخط للسترة حديثك سترة هلا تيحاها جم الخلف خلاف كبدن كتاغنا والاضطراب اضطراب كنا موجب للضعف انه ضعيف يا كينيا حديثك تصالح وسو قاطي وهي كدبنا عندي كهرنا isagoo hortiin ibn Salah ba fi muqaddimati ku keenay gadaashiina Siyuuti iyo baalfiyadiisa iyo tadriibkiisa iyo qeyrkood ba ku keenay marka xadiidka dhaif weey laakiin waxay leeyahay baabka baabu nawaafil weeye xadiidka dhaifka hadu sanad u darayn soomaynaan dhihin bay yiraahdeen fadaa'il al-a'maal waa lagu isticmaali karaa wax kale oo looga leexdana ma hayne imaam Ahmad iyo sooma qabil jirin Abu Daawud ijtihaadaadka ragga xadiidka dhaifka aan ka jeclahay saasay leeyahay Soomaa waxaan filayaa in Ciraaqi waa Siyuuti kii tilmaami jiray alfiyadiis aw talabatu ilmi yaay xasuusi ninkii dhigi jiray kuma kana Abu Daawud aqwa ma wajad yarwihi wad-dha'if haythu la yajid وبيت كدن بيان ولا معنا مصطلح بنانك اسدغتان سوما وامام العراقي رحمه الله تعالى في الفيته طيب على إنسان وجرسنيسا مسألة صورتي waxa weeye sutradii iyo qadarkeedii garanay xukunkeediina garanay sutradayda inteen leeg baan ka fogaanaya ma hoostaan ka gala ma maalin socod baan u tagaa ala thalathati adru'in saddex dhudhun buu jirsanaya ila meel saddex dhudhuna baad ka istaagaysaa waad ka sujuudi iyo rukuuci kartaa dadkana meel badan ka xanibi maysid taana nabiga ka sugantahay sallallahu alayhi wa sallam oo nabigana waxa ka sugan hadii Saalim ibn Sa'd al-Saa'idi nabiga iyo gidaarka mar waxa la yiri waxa u dhaxayn jirtay mamaru shaatin neef ari inta uu maro marna nabiga waxa la yiri meesha uu istaagan yahay thalathatu adru'in saddex dhudhun baa u dhaxayn jirtay waxa lagu jamciyay lugaha meesha la saaray iyo sutrada waa saddex dhudhun meeshaad ku sujuudaysa iyo sutradana neef ari meel u mari kara idin dhaxayn la sutradii waxa laga yaabaa wax yar inaad qotamisayo hadaad madaxa taabsiisa uu ka dhaco gadaal inaad uga yar degto ama gidaar weyn baa ay tahayo madaxa hadaad ku nabto laftaadu madaxa ku xanuunaa dhici karta gadaal uga yar deg waxa idin dhaxayo taana waa inta ay ku jirayso fayahrubu al-mururu illa mara haram noqon heelaydan markaas haduu sutra leeyahay isaga iyo surtadii in la kala dhaxmaro xaraan way nabigana sallallahu wakiilaha qofku haduu ogaan laha law ya'lamu al-marru bayna yadiyi al-musalli madha alayhi dabbiga soo gaaraya haduu ogaan laha lakana an yaqifa 40 khayrun lahu min an yamurra bayna yadayhi afartan ina taagnaato ba kaaga khayroon inaad marto afartan kalima afartan sana ma afartan maalmood ba ma afartan bilood ba nas aad sariix oo sugan ma jiro laakiin riwaaya bazaar iyo geyrkee wariyeen oo dhacfi ku jira waxay leedahay lakana an yaqifa 40 kharifan afartan dayrood iska afartan dayrood afartan sano ma waxa lagu yiri dambiga ku soo gaaraya ka weyn afartan sano inaad taagnaato afartan maalmood ba ka dhig afartan maalmood inaad taagnaato kaaga roon inaad hormarto dambi weyn inay tahay baa halka ka garatay walidaalika culimada qaarkood waxay ku dareen ninka sutradiisa laga dhaxmara min al-kabaa'ir bay ku dareen fi jins al-kabaa'ir bay ku tiriyeen wayundabu waxa sunnah daf'u al-mar qofka maraya in la iska celiyo bil asali sida fudud wayaziidu wa ku daraya qadar al-haajata babaahidu inta ay tahay kasaa'il sidii qofku soo weeraray oo kugu soo hujuumay oo kale fa in ma tahdu arinta ku dhintay fahadarun hadru iyo kama jiro sutradii ninka dhigtay wuxuu xaq u leeyahay cidii martiraade xaraanta ku dhacaysa jac inuu iska yiraahdo marka laakiin uu iska celinayo mujeedadu qofka inaad wax yeesho ma aha inaad iska celiso way asalku saadarteed qofku inuusan arkaynin baa dhici karta inaad tukanaysa kuma arko ama inaad sutra leedahay kuma arkaba ama labadiina midnaba ma arkaba waa mashquulsan yahay waa yar baxsan yahay waa yar degdegsan yahay dad baa ka qarinayo idin dhaxayo horta ayuu soo mara kuma arko ama adigaaba waxa tukanaysaa
salaadaan nin tukanayay u ekayn salaad baad ku jirtaa hareerahana waad fiirfiirinaysaa xaggaad fiirinaysaa qofka meesha marayaay qofkan inuu tukanayo inuu hareeraha fiirfiirinaya ma kala garan karo nin salaad ku jira oo xaggaa sheekada aan la socda xaggaa isaga sii jeeda adigu soo caadi maaha inaadan u qaadanin salaad inuu tukanayo iska marto qofka inuusan ku talagelin baa dhici karta saas darteed waa inaad iska reebto xaq baad u leedahay laakiin adna maxaa lagaa rabaa biqadri alxaaja hadba baahidu intay tahay gacanta u dhigo baraaruji hadduu isa soo adkeeyo riix hadduu kula dagaalamo saa gacanta iska yidhaahdo ku dhufo qac ka sii hadduuba qalab ka tidhaahdana dhiiggiisa waxba laguma laha xadiidka abi saciid alkhudri baa ahaa nabiga sal alay slam inuu yidhi qofkiin hadduu tukanayo idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas haddaad sutro leedahay wey haddaadan lahayn way soo socotaa fa araada axadun an yajtaaza bayna yadayhi qof baa inuu hormara isku dayay falyadfachu ha iska riixo fain abaa hadduu diido falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shayطaanu wey dagaalkii hadduu ku dhinta soo ma aha qaacidan hore in badan soo marnay maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin wixii sharcigu kuu ogolaado wixii ka dhasha dandhow laguma laha la dagaalan baa lagu yidhi dagaalkii hadday qalab ka tidhaahdo hawl isagu talabay lakin maxaan la ogolayn salaad baad ku jirtaa bastoolana halkay kugu jirtaa qofkii soo martuu yidhi dhafoorkaad kaga dhufatay taa lama ogola de ama toorey baad wadataa halkaasoo golxabka kugu jiraayo martuu yidhiba wadnahaad ka taagtay lama ogola nin dagaal u taagan baad ahayd meesha nin salaad tukanaya maadan ahayn laakiin ninkii haddaa iska kari weydo waa bastooladaadii waad wadatay ama tooreydii waad wadatay aad mar uu yidhi markii aad iska celisay feedhba kugu bilaabay adna waad u dhiibtay okay way ha dhintay kawaa la ogolya fainamaa falyuqaatilu laakiin dee isaga dishayo dhiiggiisi waa hadur lagu yidhi laakiin soomali waxay ku mahmaaday mataqaanaa tuug waa hadur bay laakiin reerkooda yaa mari ninkii tuugga aha la dilo inaa cida kuu soo doonan baa dankiisa laga yaabaa laakiin markaa reerkoodii marta maxaa dhici tuug waa hadur bay dheheen laakiin reerkoodii yaa mari ninkii reerkooda mari lahaa baa la rabaa reerkii uu ka dhintay dakan iyo dhiig kugu maqan way marka dadka laaya maaha macnaheedu ee waxaa weeye iska celiya dadkuna ninkan xaq buu leeyahay inuu kaa iska celiye hadiidin wey fain lam yakun sutratun haddaynan sutraba u oolin qofkii aw tabaacada canha waa ka fogaado meel dheer xaddii sharcigu ogolaa buu fadhiistay meel ka fog halkanuu sutradii dhigtay masaajka gadaashiisana waa istaagay intaa qofkii maro orod buu isku soo daayey ma loo ogolyahay maya wuxuu leeyahay kuri hal muruuru horta in la maro waa karaahiya xaaraan maaha waayo xaquusan lahayn buu xajizay tacaddi buu sameeyey isagaa jaani mutacaddi ah waxaanan horay usoo sheegnay culimmadu in badan qaacidada ay qabaan waxaa weeye wixii sharciga xuduuddiisa ilaali lagu yidhi haddii qofka kale jinaaye iyo tacaddi uu ku sameeyo lam yajib calayka waxaanan usoo qaadanay qur-aanka markii la shido fastamicuu lahu waansituu baa la yidhi dariskii baa qur-aankii kugu dheereeyey gurigaagii baad joogtaa ama shaqadaadii baad joogtaa inaa hadashoo danaysatana aad ku qasban tahay dheerayntuu dheereeyey jinaaye iyo tacaddi weeye dhegaysigu waajib kuguma aha masaladan muruurka asalka xaraam bay ahayd uu ka fogaado masaajka o dhan buu xayirtay tacaddi buu sameeyey isagaa mutacaddi ah lam yajib calayka alinkifaafu inaad bannaan ka taagnaato waajib kuguma aha haddaad iska dayso way ku fiican tahay ixtiyaatan kuriha almuruuru saa wey marka walaysa lahu dafcu isaguse inuu qofkii celiyey isagoon sutro lahayn ama aada uga fogaaday xaquma laha halkaa inuu ka soo orda lama ogola adoon sutro lahayn dadka inaad riixdana lama ogola maxaad u riixi sutro samaysa markaasaad xaq u leedahay inaad xaqu dafci yeelato waxaa shardi u ah sutro inaad leedahay walidalika nabiga xadiidkan wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu wax sutro waabaa u tukanayaa qof baa doona inuu mara marka haddaadan wax sutro ku aadan lahayn qofna ma riixi kartid walow wajada hadduu helo dadkii hormarin baa lagu yidhi wuxuu helay fii safin saf buu furjatan meel ka banaan helay dadkiina way buuxin waayeen safku hadba midka hore in la dhammaystiray ahayd meel banaan bay kas isaga daayeen markii hore
ama salaada dhexdeeda boos banaanaaday oo qof baa xasuustay inuu san weyse qabin ama weysadu ka jabtay oo baxay qoladana maanay gelin falahu lmuruur inuu maruu xaq u leeyahay liyasturahaa meesha inuu asturo meesha in la asturayo la buuxiyaayey ajir weyn bay leedahay mar nabigu xadiidkii ibni cumar oo abu daawuud iyo imaamu axmed iyo tabaraani fi lkabiir ay ku warinayeen saxiixa wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa markuu safka sima meelaha bannaan buuxiya nabigu yidhi walaa tadaruu furuujaatin lishayطaani shayطaanka meelo banbanaan ha uga tegina waman wasala safan wasalahu اllahu waman qaطaca safan qaطacahu اllahu ninkii saf xidhiiriya allah xidhiirinaya ninkii gooyana allah goynaya xadiidka imaamu siyuuطi risaaladiisa fi lxaawi fataawada ku jirta la yidhaahdo bastu lkafi fii itmaami safi wuxuu leeyahay safka kaa horeeya hadduu banaanaado ood buuxin weydo habaar baa horta kugu dhacay habaarkaa macnihiisuna waxaa weeye jamaacada ajirkeedii malihid qultu ijtihaadan walam ara axadan sabaqanii ilayhi qof iga hormaro horta yidhi ma arag laakiin fadiilada jamaacada nin lagu ballaacnadaysaa lagu habaaran oo meeshuu buuxin waayey darteed u habaaran ajir jamaaca heli maayo halkaasu isagu siyuuti ka mida raximah tacaala mar kale nabigu wuxuu sheegay taa cuquubaday leedahay wey haddaan la buuxin mar kale wuxuu sheegay haddii la buuxiyo ajirka la helayo oo wuxuu nabig alay slam xadiid caaisha ay wariso imaamu axmed ibnu maajah warinayeen waman sadda furjatan rafacahu allahu biha darajatan ilaahay darajo kor buu u qaadaya riwaayo kale waxay leedahay bana allaahu lahu baytan fi ljannati warafacahu bihi darajatan darajada kor baa laguu qaadi jannadana daar baa lagaaga dhisi meeshaa banaanaatay buuxisay lidaalika culimmadu khatawaadka mamnuuca waxay ka soo reebeen saf in la buuxinayo oo kaleeto marka ninka inuu nahyigaana ka cararo ajirkaana raadiyo qoladii ka horreysay hadday samayn waayaan intuu soo dhex qaado inuu buuxiyo waa loo ogol yahay muruurkuu hormarayna dhib ma laha sutraday dooni ha lahaadaan wallahu aclam wasal allah ala subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka wa atuubu ilayk